gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga UCID Cabdinaasir Maxamed Booni ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu suurtaagay shirkadaha diyaaradaha ee xujayda reer Somaliland geyn jiray wadanka Sacuudiga isagoo sida uu sheegay shirkado diyaaradeed oo cusub siiyay ruqsad ay ku qaadaan xujayda waxa saaka aad iyo aad ayaan darro u ah taariikhdan markii u horeysay ay dhacday ay tahay in maanta shacbiga reer Somaliland dadkii ilaahay u qadaray ama maanta u heelanaa inay soo gutaan waajibaadka xajka inay maanta ay dhooba yihiin oo baasaboorradoodii xafiisyadii u adeegi jiray ee shirkadaha diyaaradaha yaalaan iska daafiisa waxa weeye loo soo saaray ayna maanta ka gudbin marxaladii koobaad oo aan loo qaadin dawladda Sacuudiga ee u soo fiisay lahayd sababta taas ay ku timaadayna waxa weeye inuu madaxweynaha dawladda Soomaaliya Farmaajo u dawladda Sacuudiga u geeyay laba shirkadood oo diyaaradood uu yiri labadaas ganacsiga oo dadka daabulaya waxa la yiri Soomar hay'adda duulistii hawada Sacuudiga wuxuu buuxin kari waayay shuruudihii diyaaradaha Sacuudiga ee madaaradooda ka degaya kadibna waxa la yiri raalle haw waxa uu mamnuucay shirkadii diyaaradaha ee dadka u daabuli jiray xujayda Saudi Arabia oo Jubbiya daala ah waxa uu ku amray maadaama labadii shirkadood ee ganacsigu isagu watay la diiday in maanta aan la tagin xajkii waxaan u aragnaa cadaawada Somaliland u hayo waxaan u aragnaa muddada sanadkii uu joogo in mar walba bil walba uu ku talaabsanayo hagardaamo qarankan uu maleegayo waxa uu dambeysay tii uu ku mamnuucay in beesha caalamku ay Somaliland taageerin adduunyadu ka diiday maantana wuxuu marayaa inuu xajka mamnuuco taariikh madoweeyay waa madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya soo mara dawladdaanu jaarka nahay ee mamnuuca xajka waayaan darro weey ay yiraahdo hadii diyaaradda ganacsigu ay hirgali weyday yaan sanadkan xajka la tagin